bulshadani u badan dhalinyaro haween ilmowdiin ayaa waxay sideen deegaankani Faafi ay maanta ugu soo dhaweeyeen musharax MB ee Dr. Maxamed Shafad Bicis oo u taagan xilka madaxnimo ee deegaankan Faafi ee gobolka Waqooyi Bari. haddaba mar ay kaga hortageen meel fagaara ah soo dhaweyntoodii ayaa wuxuu jawigu ahaa كورينا وحاول بيختار محمد بيعز شفت لكن على حساب توم كرتو نكون وانا من الجراء وانا تختار بقول كويس ديتن dadka codeeyo waxa waay waa wiiman oday abxuha bilcaan waay dumar waay marka waxaan u maleynaa dibkiino dhan asaa yaqaana naagta umuusha tan jiran tan caloosh ka soo baxday tan ilmaha ku qalloocdeen tan wixii oo dhan waxa soo dhan wuu garana waa nin naxariis badan waxaan u maleynaa takhtar meeshan nin takhtar baan soo maray takhtarka wuu garana dadka baahidooda waxaan u maleynaa meeshan jiiraankaana walaalaheenna daadaab way fiiriyeen takhtar bay keeneen daabadoodu keenay waxaan u leenahay annaga daadaab isku mid baan nahay dad walaalaan nahay aynoo daadaab wixii loo taray annagana waan noo taray waana ku support garaynaa Dr. Dahiye wixii daadaab uu qabtay waan garanaynaa wuuna ku mahadsan yahay Dr. Bicis tiyo kale u qabanaya dadaalkii Dr. Dahiye uu sameeyay Dr. Bicis nooga fadhina asagana wuu balan qaaday waxaan rabaa inaan ii sheego aniga Kenya hadda waxaan u maleynaa dadka aniga waxaan leeyahay takhtarkan bari uu daaweeyay Kenya hadii loo tartamo malakumood yaa ka cabsooda ana waxaan u maleynaa nabood inaan ka galaa nabaddu ana waxaan u soo daaweeyay soo maanta waad garanaysaa waaga anoo yaaban oo leey malakumoodka dhoo ku taagan oo carar rabo oo dhaqaaqi karin yaa takhtarkan iyada wuu daaweeyay maanta waxaan leeyahay kureeydan ku daaweynaa waxaan leenahay Dr. Bicis
welcome waatan xagadheera halkan kaaga digaya maxamed daris waxaan u malay ninka ugu horeeyay waa maxaa way Modris Dr. Dhicis waa nin aqoon-yahane oo deegaanka Faafi ka soo jeedo waana nin wanaagsan oo aqoontiisa meel walba ay gaartay asagoo xil qabanin oo xil dawladeed wali aan loo dhibinaa wax taxtarkiisa la arkay insha Allah oo Dr. Dhicis aan doorano insha Allah uu naafici doona ninkan naafici uu noqonay Dr. Dhicis waxaan leenahay meeshan waji badan baa halaabe hortaada waji badan baa halaabe Soomaalida wax la loo sheegay ma leh dadka waxaan maleynaa hadda kala ay doorta dil la dhaxay ayaa uu doorasho maxay la waa laga kala carar suuliid horaas sameeyay waxa waxaan u maleynaa 5 sano qaraadna doorada adduunka kala doornaa kala from tip to toe shanta sano shanta waxa waa shanta mugdiga hadii jirto taariikhda lagu qoray ku Ethiopia shanta sano waxaan ka bixin lahayn qaaradda sababtoo ah dadka reer gaarisa qaybtii wala rabaaday wala wareere waa diilaan waatan wiiloodan waakan wiiloodan marka adigu waxaan rabnaa waa maadaama kiriinka oo taariikhda ay kiriinto Soomaalida geedka hal shay hadda ilaahay jaab ku geliyo oo ilaahay kursiga ku marka hadii dhalinyaranahay anaga Maxamed Dhicis Shafad waan qaadnay dhalinyarada waana dooranayna kuweena siyaasiyiinayna kuweena saana u soo ree waxna ma saana u soo ree asagana siinayna insha Allah حقدر السلام عليكم إن بدن حقدر كم مغنن إلا يوث كان نيكا قبضة يوث كمارة فرم جراجلا أو نيكا وهم يوث كان محاول نيكا أنا ماشوا مراي إلا باجل هذا الكل شيء جاي ماشى ما درس ما كسرنا فافي دليرن دانا هو أكتين دكنا أستو دكتورك حوا يسير حورة هيستوري ونقول فوق ولا تي دكتور داهية حوا قفك من هذا إنك مركين وهيستوري وكتجافيا بعد دكتورك إن أنا لقى الدين وما ركتي كورين إن ما ركت الصومالي كدين مش جوين إن نوعى بسيم إن شاء الله نقعد سنة كلها يوم ومقلمان وكانكي ويكسر به واين إن بدلنا نحبنا هذا ديار مانونه أيوة صاروا في رأي معلن جو يا كان بيعوز الخريج أيوة كلها يوم ومقلمان وكانكي ويكسر به واين إن بدلنا نحبنا هذا ديار مانونه أيوة صاروا في رأي معلن جو يا كان بيعوز الخريج